dadweynaha ku dhaqan magaalada sheekha xarunta gobolka saaxil ayaa maanta cabasho baan ka buuxiyay xaaladda nabadgelyo darre ee ka taagan deegaankaasi taas ay sheegeen in taliyaha ciidanka booliiska iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada sheekh ay ka wadaan magaaladaasi xaalad nabadgelyo darro sidoo kale waxaa saaqa isku dhacay ciidamada milatariga iyo ciidamada booliiska degmada sheekh isku dhacaas ayaa yimi kadib markii uu xalay tore nin shacabi uu dhaawac u geystay mid ka mid a ciidamada milatariga ee xerada tababarka ku leh magaalada sheekha xarunta gobolka saaxil taasi oo markii ay taliyaha ciidanka milatariga u keenay taliyaha ciidanka booliiska inuu u soo qabto ninkii falkaasi ka geystay goobtaasi uu taliyaha ciidamada booliiska ee degmada ka dhagaaday codsigaasi dadweynahaas ayaa xukuumadda waxay ugu baaqeen inay wax ka qabato xaaladda nabadgelyo darre ee faraha ka baxday ee ka taagan deegaanka sheekh iyo deegaanada hoos yimaadaba sidoo kale waxay taliyaha ciidanka booliiska degmada sheekh ka codsadeen inuu si degdega u soo daayo dadkii u dhowaan xidxidhay kuwaasoo ay sheegeen inay ku jireen dad xanuunsanaya oo aanu xuskoodu dhammayn iyagoo ka hadlayana waxay yidhaahdeen in nabadgelyadeediiba khalkhal ku jirto taasna ay ugu wacan yihiin ciidamada loo soo diray nabadgelyada iyo ciidamadii ammaankana ay isku dhaceen saacadda laga bilaabo markhaati noo tahay ummadda wakhtigan ku jirta abaaraha iyo dhibaatada ee xoolihii laga iibsan waayey ee cidina aanay waxba siinin ilaahoodu mooyaane ee lagu kibrayo ee xaalad abuurka laga dhex wado inna laga qabtaa baanu doonaynaa somalilan adaygina arrimaha noocaas oo kale aanu ka cabanayno waa inay u eegaan siday tahay yimaadaan la arkaan ummadda dhibta haysata annagu ma oggolin mid horeaannu u baxnay waannu ku dhibannay waannu ku baaba'nay waannu ku curyaannay baaralaysayadeeda waa kuwa gidaarrada yaallaan koob yaa la siinay adeeroo qaar dambe aan nugu kallifinaya haddaad tihiin mas-uuliintii degmada shiikh hala yimaado oo hoosa loo eego oo dhibta iyo dhibaatada haysato ummaddan ha la arko iyo khalkhalkan kale ee aanu geyin adeer halna laga daayo soomaalilan muwaadiniin baannu nahay dadkii dalka lahaa baannu nahay ku kibri mayno nin madaxana odhan mayno wuu xun yahay waanu wanaagsanya odhan mayno ninku isagaa iska soo baxa yaaniyo muse cabdalla laga dhigtay mashruuc laga dhigtay marwale ways haystaan annagu isma haysanno waxbana isuma qabno dal iyo dad iyo naga dhacaysa dadkana kuwan isugu xigna waa kuwa olihii naga yaacay weli calaankaa baadidoonkii waa lagu maqan meelay joogaanna ma garanayno dumarkii guryaha ka raacay badh baanu weli daydaynaa ka yaacay carruurihii badh baan naga hambaday aanu weli leenahay halkee raadkeedii maray oo aanu weli daydaynaa waxaasina waxay nagaga yimaadeen annagu wax kala garan maynee shiikh horeba namay jeclaynoo ceelana noomay qudin danna noomay lahayn deegaanka shiikhna way nagu sheegaysa dhibtaasina way noo raacday waxaannu codsanaynaa walaalayaal haddaannu degaanka shiikhnahay oo reer miyigaa haddaan waxba naloo qabanayn oo aanaan dawlad aqoonnayn adyadda iyo askarta shiikh nagaga soo digaafaysa iyo waxa faqashu eegana rogay ha nalaga joojaanu leenahay walaalayaal bismillahi raxmaani raxiim waxa weeye waynu arkayna baryahanba shaqaqada ka dhacaysay magaalada sheekh waxaa ka jira rabash iyo ballaadhan saakana waxaa maraysaa milatarigii iyo biliiskii ayaanu maqlaynay oo illee waa la siistaa waxay isku haystaan wax kale maaha waa arrimii foosha xumaa ee bartan ka dhacay nabadgelyadu inaga dan noo tahay nabadgelyada aan ilaashanno deegaankeenna aan ilaashanno wixii khalkhal lagu ridayena dhinacaan uga soo wada jeedno dadka walaalaha ee wada degan ee milatariga iyo biliiska iyo dadweynaha sheekh in la collaysiiyo oo ina yaroo dan lihi uu collaysiiyana waannu ka soo horjeednaa yeelina mayno si kastaba ha ahaatee waxaa maalmihii ugu dambaysay ka soo noqnoqonaya deegaanka sheekha mudaharaadyo iyo rabshado gilgilay guud ahaanba deegaankaasi kuwaasoo ay dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi kaga cabanayaan taliyaha iyo ciidamada booliiska degmada sheekha maxamed cali axmed kaabe wararka telefishinka caalamiga ee Soomaaliya magaalada sheekh ee xarunta gobolka saaxil.